madaxweynaha dalka Eritrea Siyaas Afwerki ayaa lagu wadaa inuu booqasho ku tago dalka ay dariska yihiin ee Djibouti oo in muddo ah ay ka dhaxaysay colaad dhanka dhulka ah. wasiirka arrimaha dibadda Djibouti Maxamed Cali Yuusuf ayaa wareysi uu siiyay wakaaladda wararka Turkiga ee Anadolu waxa uu ku sheegay in Siyaas Afwerki uu booqanayo Djibouti sida ugu dhaqsiyaha badan sidoo kalena madaxweynaha Djibouti uu isna tagi doono dalka Eritrea. labada madaxweyne ayaa ku kulmay dalka Sacuudiga bishii September ee la soo dhaafay waxaana socda wada hadallo lagu doonayo in dib loogu soo celiyo xiriirkii labada dal sidoo kalena ay ka xaajoodaan dhulka Eritrea ay ka haysato jamhuuriyadda Djibouti iyo in maxaabiista labada dhinac ay kala haystaan la sii daayo. Maxamed Cali Yuusuf wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda Djibouti ayaa sheegay in isagu uu la kulmay dhigiisa Eritrea kalsoonida iyo isku soo dhawaashiyaha labada dalna ay ka wada shaqeynayaan labada dhinac. wasiirka arrimaha dibadda Djibouti ayaa bogaadiyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed dadaalka uu wado ee ku aadan in Geeska Afrika la nabadeeyo. waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyay in xiriirka Djibouti iyo Eritrea oo tan iyo sanadkii 1980kii ahaa mid aan hagaagsaneyn uu hadda rajo wanaagsan leeyahay isla markaana labada dawladood ay gaari doonaan heshiis rasmi ah oo ku aadan muranka dhinaca dhulka iyo maxaabiista dagaalka ah ee labada dhinac ay kala haystaan.